aan ku bilownay baarlamaanka maamulka Puntland ayaa xasaanad xubinimo ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dowladaareed kadib markii mooshin ay ka keeneen 38 mudane arrimaha loo cuskaday xasaanadka qaadistiisa waxa ugu weyneed gacan ka hadalkii ka dhacay xarunta baarlamaanka ee Garowe maalin ka hor intaan loo codayn xilka qaadistiisa gudoomiyenimada fadhigan oo ay soo xaadireen 40 mudane ayaa waxa ay cod gacantaaga 39 mudane xasaanadii uga qaadeen xildhibaan hore Cabdixakiin Maxamed Axmed Dowladaareed halka gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil uu ka aamusay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa intaa kadib wariye Axmed Caawil uga warramay waxyaabaha ay bal cuskaday xasaanadka qaadistiisa Cabdixakiin Maxamed Axmed way dhacday arintaasi maanta xilkii waa laga qaaday xildhibaan hore Cabdixakiin Axmed Maxamed Dowladaareed xilka qaadistiisana wuxuu ku mutaystay mooshin ayaa la keenay mooshinka la keenay waxa ku saxnaa 38 mudane oo xildhibaan saasuu ku soo gudbay waxana lagu soo eedeeyay inuu ku xaqgudbay qodobka 7 ee dastuurka dawladda Puntland oo dhigaya dhulka iyo sohdimaha Puntland iyo qodobka 132 oo dhigaya dhaarta dastuuriga iyo qodobka 55 ee xoroosaadka golaha oo isna qeexaya amniga xarunta golaha waa garta marka qodobadan aad cuskanasaan muxuu ku xadgudbaa cadeyn u haysan qodobadan cuskanayno haddaan imka soo qaato qodobka 7 ee dhulka iyo sohdimaha farqadiisa koowaad waxa sheegaysaa dhulka Puntland wuxuu ka kooban yahay gobolada Bari Nugaal Sool Cayn Karkaar Mudug Highland iyo Sanaag farqadiisa labaadna waxay leedahay midnimada dhulka Puntland waa lama taabtaan lagumana xad gudbi karo lamana kala qaybin karo waa gartay laakiin sidaa daraadeed Cabdixakiin Dowladaareed wuxuu tagay magaalada Xingalool wuxuu ka bilaabay shirar wuxuu ku baaqay in maamul gooni goosada oo halka ka sameeyo oo dadka deegaankaasi ay tashadaan isagoo xildhibaan oo xasaanad leh oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada dawladda Puntland inuu abaabulo oo ka shaqeeyo kala qaybinta shacabka iyo dhulka Puntland waxay taas qeexaysaa inuu qodobka dastuuriga ee 7 farqadiisa koowaad iyo talabaad uu ka xaqgudbay laakiin arintaas cadeyn mu haysan si cad isagoo uma soo oran maamul baan sameeyna maamulkii wali lagu ma dhawaaqin arintaas ka waran gudoomiye si cad baa loo hayaa idinka tabiyay waraysiyo ku bixiyay uu ku dhawaaqayo in laga tashado aayaha gobolka Sanaag iyo Highland aayaha gobolada Sanaag iyo Highland xildhibaanku gaarka uga tarinaya gol uu ka tirsan yahay mushaqadiisa waajibaadkiisa guud maxay tahay dadku waa reer Puntland shacabkuna waa reer Puntland shacbiga iyo dhulka Puntlandna sohdimaha dhulka iyo sohdimaha Puntland waxa qeexaya qodobka 7 ee dastuurka Puntland Axmed xilka qaadistu waa meeshii ugu dambeysay ma ku daydeen inaad la hadashaan oo marka hore lala fariisto oo baarlamaanka qaybo badan oo saaxiibadiisa ku jira ay la hadlaan meesha saaxiibtinimo ma taal hadalna ma yaal goluhu wuxuu leeyahay xeer-hoosaadkaasana lagu dhaqmaa mudunahuna 10 sano in ka badan ayuu joogaa golaha uu ka tirsanaa xeer-hoosaadka hadduu si fiican u aqriyo waxa waajib lagu leeyahay aroortii inuu 8 subaxnimo soo xaadiro waajibaadkiisa shaqana uu guto aanu absan yeelan wixii dooda iyo wixii fikro qabana golihiisa dhaxiska sheegto laakiin intuu tuulooyin tago in halka ka bateriyo durbaan ka tunto xaq uma laha xeer-hoosaadkii buu ku tuntay qodobadaas una jabiyay maxaa xigi doona marka xilkiisi haddii laga qaaday oo baarlamaanku ay ka qaadeen maxaa xigi doona oo xubintii uu baneeyay xubinta uu baneeyay waad ogtahay nidaamka dhaqanka ee lagu soo xilo xubintaasi waxay u taal dadkii isaga markii hore soo xulay uu mutalayay inay soo mariyaan nidaamkii ay awalba ku soo xili jireen saasayna golaha ugu soo gudbaysaa golahuduna nidaam buu leeyahay habraacyo leeyahay habraacyadayna mari doontaa insha Allah billahi kariim laakiin waxay ka imaan doontaa cidii matalaadaas iska lahayd annagu haddaan baarlamaan nahay mashruuc gudoon nahay awoodeeda annagu iska maleynaan go'aan ka gaarno cidii iska lahayd baa soo asayn doontaa insha Allah billahi kariim Cabdixakiin in uu gacan saar u leeyahay dawladda dhexe marka arrimahaas aad ku eedeyn jireen ma ka baxdeen wali mise waa ku guda jirtaan horta Cabdixakiin inoo dambeeyo hadda isagoo nin shacab oo leh xuquuqda shacabka kale ee reer Puntland ay leeyihiin laakiin waxaan ka hadli karayaa
kuwa kale ee mas-uuliyiinta ah ee reer puntland heer federaal ah ama xildhibaana ha ahaadeen ama wasiir ha ahaadeen ee ku howlan burburinta shacabka iyo dhulka puntland haddii aanay ka waantoobin oo aanay ka joogin waxyaabaha ay faraha kula jiraan sidan oo kale ayaa loogula xisaabtami doonaa waayo meeshani waa meesha ay ka soo baxeen haddii xildhibaan yihiin halkan ay berri imaan doonaan cod bay usoo raadsan doonaan haddii waxay naga rabaan nagama heli doonaan haddii aanay dalkooda iyo dadkooda siday tahay aan uga adeegin hadday iyagu dalkooda burburiyaanna dee tallaabaa laga qaadanaya gudoomiye burburintu waa erey culus marka maxaa caddayn aad u haysaan in wasiiro iyo xildhibaano puntland kasoo jeeda ay puntland burburinayaan waxa weeye axmed soomaali siyaasadeedu ma qarsoona puntland waa dowlad aan si fiican isu taagin dastuur leh xeerar leh golayaashii fulinta iyo garsoorka iyo xeerdejintaba leh nidaam bayna ku shaqaysaa cid kasta oo markaa docadacaysa nidaamka iyaga iyo dowladnimadayada foojignaan baan leenahay waa la soconaa hay-ado sirdoon baan leenahay hay-ado kaloo dawliya oo arrimahan ku taxalay baan leenahay wasaaradda arrimo gudeed baa jirta wasaaradda amnigaa jirta cid kasta oo fargelin ku samaysa masaalaxa puntland runtii waxaan u leenahay xog bixiyaal soo gudbiya waan oganahay tallaabooyinkay qaadaan iyo waxyaaba ay ku hawlan yihiin nin kastana meeshuu joogo baan kula soconaa wuxuu qabanayo waxaana kula talinaynaa inay ka waantoobaan dadkooda iyo dalkooda inay waxyeelayaan waan masantahay